guddida komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ayaa maanta kala diray agabka iyo shaqaalihii ka howlgali lahaa goobaha codbixinta ee gobolka Saaxil. Gudoomiyaha komishanka ee gobolka Saaxil Muuse Cabdi Xasan ayaana ka waramay qaabka ay uga howlgaleen isagoo fariin u diray dadka ku dhaqan goobaha ay ka howlgalayaan shaqaalaha komishanku. Waxaanu sheegay inay si nabadgelyo ah u macaamilaan shaqaalaha iyo ciidanka amniga. maanta oo ay bishu tahay 30 oo bisha shanaad waxaanu ku guda jirnaa kala diristii agabkii iyo howlwadeennadii komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil. waxa kaloo iyaguna hawsha qaybtooda ka ah ciidamadii nabadgelyada oo militariga iyo booliiska leh. waxa insha Allah tacaala hadda aanu wadnaa oo rajaynaa saacadaha soo socda inuu dhamayno kala diristii goobaha oo degmo doorashada berbera noqonaya 199 goobood halka ay ka noqonayaan degmada Sheekhna 40 goobood. isugeynta guud waa 240 goobood oo aanu rajaynaa insha Allah tacaala galabto wixii ugu dambeeyay inay si nabadgelyo ku gaaraan goobahoodii. hawl fara badan runtii ayaa halkan ka socota. waxaanu u mahadnaqaynaa oo had ilaa hadda la wada shaqaynaynaa xisbiyadii qaranka iyo maxaan ku rahay nimanka dadka la yiraahdo howlwadeennada komishanka doorashooyinka qaranka. hawl baan ku jirnaa insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay si khayr qabta oo nabadgelyo ku soo dhamaato. dhinaca kale iyagu waxa halkaasi ka hadlay xubno ka socday xisbiyada qaranka waxaana guud ahaanba shaqaalaha kula dardaarmeen inay si dhexdhexaad ah ay ku shaqeeyaan. waad arkaysaan maanta waxaa halkan ka baxaya 240 goobood baabuurtoodii iyo agabkoodii baa ka baxaya. haddii aan la yiraahdo 31 May oo bariya waxa doorashadii baa inoo bilaabmaysa insha Allah. waxaan halkan kula dardaarmayaa oo Ilaahay hortu si nabadgelyo ah inoogu dhameeyo waayo caalamkii oo dhan baa ineegaya. waxa yimid goobjoogayaal fara badan oo inta hore ka fara badan baa yimid. marka waxaan kula dardaarmayaa shaqaalaha komishanka guud ahaan Somaliland codeeyayaasha intaba in si nabadgelyo iyo transparent leh inay hawshaasi inoogu dhamaato ay inooguna dhacdo. waxaan kula dardaarmayaa dadka gaadiidka wata ee qaadaya caruurta dhalinyarada ah ee wanaagsan ee u bixi dalka ah ee u shaqeynaya ee ka shaqeynaya doorashada dalkooda u shaqeynaya. waxaan kula dardaarmayaa darawaliinta inay ilaaliyaan Ilaahay baa wax ilaaliyay oo ka ilaaliyaan inay baabuurka si khaldan u wadaan inay cadho ku wadaan nabadgelyada Ilaahay ku geeyo darawaliinta. shaqaalahana waxaan leeyahay si cadaalada oo feera dadkiina musharaxiintiina ugu shaqeeya. waad dhaarateen dhaarta oofiya oo Ilaahayna ka baqa. musharaxiintana waxaan leeyahay wixii halka ka soo baxay go'aana ku qanca ku niyad samaada. guud ahaan dalku wuu wanaagsan yahay alxamdulillaah. doorashooyin fara badan oo hore inoo soo dhacay tanna waa ka mid inkastoo ay ka casrisan tahay aad moodanayay inay ka dhib badan tahay inkastoo fududahay. waa laba doorasho isku sidkan waa markii ugu horeysay in sameeyno. waxaan halkan ka amaanayaa guddida doorashooyinka qaranka oo aan leeyahay hawl fara badan oo waqti cidhiidhiya aad ku sameyseen baad sameyseen. maanta oo bishu tahay 30 berito waa 30 waa maalintii doorashada galaynay. maanta waxaanu ambabixinaynaa agabkii doorashooyinka oo saaka ay bishu tahay 30 May. waxaanu Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay si wanaagsan doorashada noogu qabto. waxaanu ku kalsoonahay xubnaha heer degmo ee aanu dirayno iyo xubnaha heer goobeed iyo xubnaha heer gobol intaba aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida quruxda badan ee hawsha noogu socoto. Ilaahay waxaanu ka maryaynaa mahadoo dhan Ilaahay waa iska leh. Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay si nabadgelyo ah oo qurux badan Ilaahay noogu qabto doorashada. risalka aanu helno si qurux badan annaguna aanu noqono dad wanaagsan oo qanaacad leh oo ku qancay doorashada iyo maxsuulka ka soo baxaba. waxaan leeyahay haddaanu nahay musharaxiinta iyo haddaanu nahay shacbiga Soomaaliland codeynaya iyo haddaynu nahay garsoorayaasha komishankaba inta qolo walba waxa la rabaa waajibkeeda inay ka soo baxdo. garsoorayaasha komishanka waxa laga rabaa hawshii si qurux badan inay u qabtaan. howlwadeen muxuu ahaa xisbiyada iyo munaaqibintooda waxa laga rabaa inay marag fiican noqdaan. musharaxiintana waxa laga rabaa inay noqdaan dad wanaagsan oo qanaacad leh oo diin leh. waa Xamse Jaamac, telefishinka caalamiga badda cas 24 magaalada Berbera.